وهاجاج داوديال وحن كسي درقينا جوابسي أما ما ركتي دقيقة ذي وجودن بي غرفينتا قيبته وجودن بي سؤالية وحن كسو قاعدنا جودها دلكني كينيا دكتور عبد الوهاب أدور وجر باته هاي النرك جاد أنا هاي وحد مدة دلكني حالة مفع إنه مركي لو فيريو جدي صعد كبي بي أيضا ورجيس كان The Sunday Nation lead story وحوله Game of Thrones طبعا Game of Thrones وفيلن عن أو ماركتي power struggle يعني أنا أمير نقول أنا أمير مركا وحكوا صورا مدحينها دلكا كحجين كيسا يسحب كيسا السياسات رايلا أودينغا BBI بالا اسكو هايستا كحجين كمدحينها حوتاجين هاي ماي isbedel waa la samayn karaa oo xagee loo degdegaya wide rush waxaad moodaa maaragtay madaxweynaha iyo saaxiibkiisa siyaasadeed maalinka ku xigo waxa ciriiri ku sii noqonaya taageeradii ay ka heli lahaayeen maaragtay qayb kamida bulshada rayidka ha noqdaan kuwa kaniisadaha oo aad loo dhageysto ha noqdaan maaragtay golaha sare ee muslimiinta dalkani BBI waxaad moodaa buraamburkiisa jahwareer fara badan ayaa ka jira bal inoo sheeg walaal fiiri horta waxa weeyaan markii constitution-kan hadda aan haysana 2010 yani waxa weeye runtii la hirgelinayay wuxuu soo qaatay 20 sano soo qaatay constitution-kan marba yani waxa weeye clause laga bedelay clause 2A mar la bedelay 1992 la bedelay yani 20 years oo macnaha yani consultation u dhacay validation u dhacay yani waxa weeyaan yani waxa weeye qof kasta uu ka qayb qaatay ilaa soo saarnay constitution ugu fiicnaa dunida aan soo saarnay hadda hadii la rabo in amendment lagu sameeyo similar process laga la ku fiican oo aan la raash garaynin laba qof yani laba madax oo isu timaado gacmaha is saartay micnaheeda kali kuma eka waxa loo baahan dadka in la kasbado loo baahan dadka in laga dhaadhiciyo waxa loo baahan marka meelaha yani BBI runtii dadka ay ka qabaan reservation-ka in laga wada hadlo oo macnaha si lagu bedeli lahaa farkeeda la galo laakiin document-ka ay tis dad badan ka beedisan oo dadka Kenyaanka dad badan baa ka beedisan ama kanista ka ayaa kamida namlefa kamida qoleenkan yani islaamka kamida yani dad badan ka beedisan waxay leeyihiin waxa hada amendment ku sameeynayna process-ka saxda marina let's go the right process aan marina kadib marka dadka Kenyaanka ku qancaan referendum loo qaado marka iyada loo qaado laakiin hadii hada la raash galayo qof la afduubo waxay noqonaysaa marka wadanka qalqal loo galaya waxa kale ku sheegaya dalkan waxay ka rabaan parliamentary system of governance ay ka rabaan oo isbedelaya macnaheedu waxa weeyaan parliamentary system of governance waxa waaye xisbiga ugu badan ay oo kuraasta baarlamaanka u badan dawladda dhisi doono hadii dawladda macnaha waxa marka waxa soo socdo madaxweyne awood badan soo socdo oo prime minister ciirin kara oo wasiirada ciirin kara soo socdo marka taas marka absolute powers way diideen dadku way diideen war madaxweyne waxa imaan doono awood la imaan doono وهذا أود كنت تكرفلي دونا ما كل موي عمل ودقنجري أما كباكي حلي كباكي وبرجع سوت أفريقيا ستايل بيهي حتى يملك است يعني وهذا كيس أفريقيا مركز يكتير حلي جاي السجعة إن قفك أول بدن قوي شو ستايل بيهي قفك حتى مقعي اللي بيحجرين يعني جمع كات وحلا بحيد واسألنا مزيو ولا بحي ليس سياد بروح وحلا بحي معلك معلمينته ونك الله يشيك محوها يعني قذافي وحلا بحي كينج اوف ذا كينجز ولا بحي نك اللي هذا محوها يشيك كما يعني كينجز كوندا وحلا بحي يعني ديليفنت مرودي ولا بحي يبدا من وحلا بحي يعني نك يقبس يعني بريتش امباير نك يقبس ولا بحي كمزو باندا لايف بريزيدنت ستايل بريك ستايل ستايل بي هيد لكن استايل ما جرو هذا استايل ما انت ما جرو مدحين اود بدنا صباحه اود قبس صورته قال maaha يعني dadka Kenyaanka ma aqbalayaan dadka Kenyaanka waxbay barteen way soo jeedaan hada wax barteen marka laga ma yeelay laakiin Dr. Abdi Wahab waxaad moodaa maaragtay madaxweynaha dalkan iyo saaxiibkiisa siyaasadeed waxay ku doodayeen in geedi socodka BBI-da uu midayn doono shacabka dalkani sidoo kale maaragtay meesha waxa ka bixi doona waa sida iyaga hadalka u dhigayaan ma dhibaatooyinka ka dhasho natiijooyinka doorashada oo la isku qabsado xilli maaragtay cudur xun dadweynaha ka jiro oo dhaqaalihii dhulka lala simay su'aasha nuxur kale ayaa waxay tahay labadan shakhsi danta ugu jirto arrintan ay saan maaragtay u boobsiinayn maxay tahay wala fiiri waxa illa hadda aan iga dhaadhici waayay coronavirus dalkeena ka jira
oo maanta dadka ay u leynayaan yani SGR kii deyntiisaan bixinaynaa oon la leeliicaynaa 7.2 trillion deenaan gashay oo meelaan ka keenaan lanahay waxaan yani waxa weeyaan waxbarashadii North East maanta waa laga soo kala yaacayaa oo iskuuladii maanta yani amaan daraa ka jirta laleeyahay laga soo kala yaacayaa yani dhaqaale intaa la eg BBI lagu bixiyay maxay ku keenadaan ilaa doonaan ma fahmay maxay u boobsiinayeen labadan shakhsi kullay danahooda ay ka dhaxarkeen precisely laakiin ana waxa ila fiicna labada nin waa laba nin horta ixtiraam badan u hayaan dana aad taaban kartid may noqon kartid labada nin waa laba nin ixtiraam u hayo weeyaan aan aad u ixtiraam u hayo midna waa madaxweynihii midna waxa waa former prime minister laakiin waxa loo baahan yahay war iqanciya yani aad aniga qanciya igu qanciya waxaad wadaan igu qanciya war wadankii coronavirus ka taagan dhaqaale loo baahan yahay wadanka deyn baa la dhacday 7.2 trillion wadanka deyn ayaa la dhacday wadankii waxa weeyaan iskuulada waa laga kala cararayaa waxbarashada hoose u dhacday dadkii micnaa kiyaanka ahaa the real struggling marka lacagta intaa la eg BBI waxaa ugu bixinaysaan way ugu bixinaysaan aad ugu bixinaysaan midda kale haddii dadka ay kaniisadaha codsanayaan oo muslimiinta ay codsanayaan oo dadkii macnaha yani section of the society ay codsanayaan wixii aan yani amendment aan ku sameeyo ogolaada sameeya compromise hala sameeyo wadankan compromise ku dhisan yahay dadku waxay tuubayaan in yani kuraas baarlamaan fara badan ay central heli doonaan wadamada yani central iyo section of valley heli doonaan iyo maartay iyo luwanyaasa hodow yani waxa weeyaan baarlamaan systemka soo socdo madaxweynaha iyo prime minister kulli ay qaadad kasay tuumayaan qanciya dadka Dr. Cabdiwahaab meesha waxaad moodaa waxaa ka sii lumaya maalinka ku xigo waxyaabaha uu madaxweyne Uhuru Kenyatta ku tilmaami jiray waxyaabaha la igu xasuusan doono legacy-gayga dabcan afartii maaragtay hadaf waxaad moodaa afartaas hadaf maanta qof cid hadal hayso ma laha marka isaga wuu socdaa he's going su-aashan ayaan haddana kugu celina why yani meeshan ma madaxweyne Kenyatta political stability waa ka tegi doonaa laakiin economic stability kama tagay wadankan haddaan economic stability loo helin political stability waa temporary soo garti ma madaxweyne Kenyatta ilaahay subxaanahu wa ta'ala dhaqaale u siiyey is a wealthiest person ilaahay aqoon buu siiyey ilaahay awood buu siiyey soo niyare this is a time of legacy inuu ka tago loo baahnaa waay ummadda u mideeyo dadka dhaqaale u abuuro dadka waxay rabaan u dhegeysto waqtiga loo baahnaa waqtigaa weeyaan has no excuse in yani ilaahay xaggiis maartay maxaa ka qaldan saaxiib buu leeyahay dad baa ula talinaya marka aniga waxa ila fiican fiiri Moi markuu ka tagay xukunka wuxuu ka tagay 0.6 billion wuxuu ka tagay mana deyn oo ka tagay Kibaki wuxuu ka tagay 1.3 trillion oo ka tagay oo deyn oo ka tagay in spa waa wali 10 years wahay Moi 24 years wahay xukunka 24 years xukunka hayay less than a trillion oo ka tagay oo macna 6.6 billion oo ka tagay oo macna oo deyn oo ka tagay madaxweyne Kibaki madaxweyne ugu fiicnaa Kenya soo maraa madaxweyne Kenya ugu fiicnaa soo maraa weeyaan wuxuu ka tagay 1.3 trillion oo ka tagay madaxweyne Uhuru hadda oo 7 sano xukunka hayo wuxuu ka tagayaa 7.2 trillion oo ka tagayaa 7.2 trillion oo ka tagayaa wadanka banana republic ayuu tigeeda I think inuu ataa ku baraado waa fiican midaan BBI waa iska sahlan tahay compromise la sameynaya amendment la sameynaya haddii dadka wax taban dadka weyn u dhageysto he has to listen to the people the voice of the people has to listen he has no option for that laakiin waxa loo baahan yahay inuu legacy fiican ka tago legacy aad u qurux badan inuu ka tago ayaa loo baahan yahay lagu xusuusto madaxweyne Uhuru Kenyatta maadaama yani waqtigiisa 2 sano ka hartay wahagaag Dr. Cabdiwahaab aad iyo aad baad u mahadsantahay waqtiga ayaa noo saamaxaynin daawadayaalkaasi wuxuu ahaa Dr. Cabdiwahaab oo inta badan arrimaha geeska Afrika ka faaloodo waxaan ka wada hadlaynay arrimaha doorashada iyo siyaasadda Soomaaliya sidoo kale Ethiopia Abiy Ahmed iyo Tigray waxaana ku soo gunaanadnay ama aan ku soo afjarnay arrimaha gudaha dalkani Kenya tan iyo kulanti dambe si daawada RTN TV